الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. halkan waxaan ka gelaynaa casharkii saddexaad ee hordhacii ama muqadamadii tafsiirka qur-aanka kariimka ah. waxaan hor u soo qaadanay tafsiirka tacriifkiisa xagga luqada iyo xagga istilaaxaba. waxaan kaloo soo aragnay tafsiirka culumta uu u baahan yahay oo 15 ah. kadib tafsiirkii baan waxaan usoo qaybinay 3 qaybood. waxaan markaa kadib uga sii gudubnay markaan tafsiirkii 3 qaybood usoo qaybinay baahida tafsiirka loo qabo. waxaan kaloo haddana ka soo hadalnay farqiga tafsiirka iyo u dhaxeeya taawiilka. waxaana kusoo khatinay casharkii hore dabaqaadka mufasiriintu ay lahaayeen. dadkii mufasiriinta ahaa marka dabaqaadkoodii waxaan soo niri dabaqaatu saxaaba baan ka soo bilownay oo 10 ay ugu caansanaayeen intii qur-aanka tafsiirkiisa laga soo guushay. waxaa markaa kadib soo xigay dabaqaatu taabiciin oo aan 3 dabaqa usoo qaybinay: dabaqatu madiina, maka iyo ciraaq. kadib waxaan nidhi waxaa xigay tasaaniiftii la alifay, tafaasiirta la alifay oo atbaacu taabiciin ay wax ka alifeen tafaasiirtii. waxaa markaa kadib xigay buu yidhi ayagoo laakiin asaaniid kusoo alifahaya, asaaniid ayagoo ku keenaya. tafaasiirtaasna waxaa ugu weynaa buu yidhi tafsiiru ibnu jariir addabari baa ugu muhiimsanaa. kadib waxaa bilowday buu yidhi dad culumtii aada faa'iq uga ah asaaniiddii ka tageen, markaasay nin walbaaba dhankii mashrafkiisa ahaa oo uu cilmigiisu u xoog badnaabuu markaas la aaday buu yidhi. tafsiirkii marka halkan waxaan ka bilaabaynaa haddii la yidhi wuxuu u qaybsamayaa 3 qaybood: tafsiirun bira'yi iyo tafsiirun binaqli iyo tafsiir ishaari ah. tafaasiir waxaa jidha marka 2 qayboodba kulmisay, naqligii iyo ra'yigii intaba isku dartay. tafaasiirtaasna waxaa ugu muhiimsan kan hadda aan joogno oo ah lagu magacaabo tafsiiruljalaalayn. labadii jalaal tafsiirkoodii, jalaaludiin almaxaliyu iyo jalaaludiin asiyuudiy. labadooda marka taariikhdooda ayagana meel dhexe markaan kelimaad aan ka qabanno baa xoogaa jamalku ka ishaari doono. halkaasaan taariikhdooda ka dhiganayna. faa'idatun buu yidhi marka: iclam waxaad ogaataa ana allaha anzala alqur'aana almajiida, ilaahay inuu dejiyey min allawxi lmaxfuudi baa ilaahay ka soo dejiyey jumlatan waaxidatan, isagoo hal jumlo isku xihana qur-aanku. ilaa samaa'i dunyaa buuna u soo dejiyey samadan adduunyada. fii shahri ramadaan baana ilaahay soo dejiyey bil ramadaan fii leylati alqadri, weliba kasii habeen leylatulqadri kasi ah. uma kaana yunziluhu, ilaahay marka qur-aanka wuu soo dejin jiray markaa kadib mufaraqan xaal la kala qaybqaybshay calaa lisaani jibriila buu ku soo dejinaya calayhi salaam. ilaa nebiyi buuna loo soo dejinaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. muddata risaalati, rasuulnimadiisa nebiga muddadeedii baana la soo dejinaya nujuuman qayba xaaluu yahay cinda alxaajati, baahida agteeda, markii hadba asbaabaha si waafaqsan. iyo wa bixuduudi maa yaxdudu, iyo wixii soo diriya soo dirinteeduu ku soo degahaya calaa maa yashaa allah. wa tartiibu marka nusuulilqur'aan, qur-aanka soo degidduu soo degay say u kala tartiibsanayd oo u kala horreysay. waa kayru tartiibihi fi tilaawati waalmisxaf, xagga akhrinta iyo kitaabka qur-aanka dhexdiisa misxafka say isugu xigaan waa ka duwnayd buu yidhi. fa amaa tartiibu nusuulihi calaa rasuulillaahi uu ku soo degay sala allahu calayhi wasalama, tartiibkiisu waxa weeyaan fa awalu maa nazala min alqur'aani bimakkata, qur-aanka waxa maka ka soo dega waxaa ugu horreeya iqra bismi rabbika aladii khalaq, uma nuun waalqalam, uma yaa ayuha almuzammil, uma yaa ayuha almudathir, uma tabat yadaa abi lahab, uma ida ashamsu kuwirad, uma sabix isma rabbika alaclaa, uma walleyli idaa yaksha, uma waalfajri, uma waalduxaa, uma alam nashrax, uma waalcasri.
ثم والعاديات ثم إنا أعطيناك الكوثر ثم ألهاكم التكاثر ثم أرأيت ثم قل يا أيها الكافرون ثم الفيل ثم قل هو الله أحد ثم والنجم ثم عبس ثم سورة القدر إنا أنزلناه ثم البروج ثم الطين ثم لإيلاف قريش ثم القارعة ثم القيامة ثم الهمزة ثم المرسلات ثم قاف ثم سورة البلد ثم سورة الطارق ثم اقتربت الساعة ثم صاد ثم الأعراف ثم الجن سورة الجن ثم ياسين ثم الفرقان ثم فاطر ثم مريم ثم ضاها ثم الواقعة ثم الشعراء ثم النمل باحث ثم القصص ثم بني إسرائيل سورة سبحانه النقل ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم والصافات ثم اللقمان ثم السبع ثم الزمر ثم المؤمن ثم حاميم السجدة ثم حاميم عين سين قاف ثم الزخرف ثم دخان ثم الجاثية ثم الأحقاف ثم الذاريات ثم الغاشية ثم الكهف ثم النحل ثم نوح ثم إبراهيم ثم الأنبياء ثم المؤمنون ثم تنزيل السجدة سورة داس الأفلاميم تنزيل السجدة ثم طور ثم الملك سورة داس تبارك الذي بيده الملك ثم الحاقة ثم سأل سائل ثم عما يتساءلون ثم النازعات ثم إذا السماء انفطرت ثم إذا السماء انشقت ثم الروم ثم العنكبوت ساسر أذكرت أنت القرآن كسودة مكة واختلفوا في آخر ما نزل وحسودة وحا أقودا بيسو خلافين بمكة فقاء كسودة مكة فقال ابن عباس العنكبوت بوجه وقال الضحاك يو عطاؤنا وحي الهدين المؤمنون وقال مجاهد وحي ويل للمضففين فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة وحي مكة كسودة ترتيب في سورة فذلك 83 سورة على ما استقرت عليه الروايات ثقات انت ايدتك لو كلسوني الروايوين كيدو كدل دعدي marka dambe khilaafi hajireene waa 83 suuro كو أما ما نزل بالمدينة وحا كسو دقي صماها فإحدى وثلاثون سورة وصدن يكو سورة وحا أقهر سورة البقرة ثم الأمثال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم الممتحنة لا تتخذوا ثم النساء ثم إذا زلزلت الأرض ثم الحديد ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم ثم الرعد ثم سورة الرحمن ثم هل أتى على الإنسان ثم الطلاق ثم لم يكن ثم الحشر ثم الفلق ثم الناس ثم إذا جاء نصر الله والفتح ثم النور قرب الله نقض ثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة قسم على ثم حجرات ثم التحريم لما تحرم ثم الصف ثم الجمعة ثم تغابن ثم الفتح سورة الفتح ثم التوبة ثم المائدة ومنهم وحاكم إذا قل يقدم المائدة هرمرية على التوبة بركة هرمرية فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بالمدينة هذه لكم الشيء لبدان قيبوب وأما الفاتحة فقيل وحالي نزلت مرتين بيسودقة مرة بمكة ومرة بالمدينة ساس على الحيب واختلفوا وحيسكوا خلافين في صور سوروين فقيل نزلت بمكة بيكسودقة تنوالي وقيل نزلت بالمدينة بيكسودقة تنوالي وسندخل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى هذا تفسير كاليراد كسوكوش وتفسير كي بغوي اختصار كي سأها بغوي تفسير كي سبو خازم كتاب فائدة قال صلى الله عليه وسلم وحي النبي صوبا أنزل القرآن وحا قرآن كالبال سودكي على 7 أحرف أوجه وتضباكر كي الحال فقرأوا أخي ما تيسر منه وحي قرآن كمذا ينفض هذا النوع يالك لدوان بوليه الله أخي واختلفوا مركا وحيسو خلافين في المراد ب7 أحرف تضبادا أحرف وحلقة وضع على أقوال بيسو خلافين والصحيح منها أقواشا متك كالصحيحة هنا وحويان بأن المراد بها القراءات 7 تضبادا قروين كائنة لأنها التي ظهرت مدعان مقطع يدا واستفاضت فافتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كفافتي وضبطها عنه الصحابة أي نبي كقبتي وأثبتها عن عثمان وسقي والجماعة في المصاحف يكسدين وأخبروا بصحتها وحذفوا منها ما لم يثبت متواترا موضوع أنا مركبة موضوع قروين كاس قرآن كي وحوكي سودكتي أحرف وتطبع تاسوا لسكوا فقسين وواكا يري وحوري روى الشيخان البخاري مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري
aqra'anii jibriilu baa calaa xarfin buu igu akhriyay qur-aanka faraajactuhu markaasaan u noqdo oo idhi intaan keliya hal wej buu ku socday markaa intaanu dadka waa ku cariiri maan fazaadanii waa ii ziyaadiyo falam azal astasiiduhu inaan ziyaado ka dalbahayo kama aanan zuulin wayaziidunii asna iigu darahayo xata intahaa ilaa 7 axruf ilaa 7 xarf xarfihii marka maxaa laga wadaa ومعنى الحديث بوير لم أزل أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل قرآن كإلهي وكلام كيس قرآن كيسي إن جبريل كضلبنا يو إنه إلهي كضلبه الزيادة في الأحرف والتوسعة والتخفيف جبريل ربي يسبويدين marka horta hore laba mawduuc laba qaybood baan u qaybinaynaa quraanku 7 xarf buu ku soo degay marka hore adilada sheegaysa inuu 7 axruf ku soo degay baan waxaan ka ishaaranaa laba xadiis oo qisada muujinaysa sida ay tahay saddex xadiis mid waxa weeyaan sayyiduna Uthman oo xaafidu Abu Ya'la ba fi musnadihi al-kabir ku saaray sayyiduna Uthman baa maalin asagoo minbarka saaran buu wuxuu yiri ilaahay baan inuu ku xusuusinayaa haddii uu jiro nin nebiga maqlay oo dhahaya nebigu quraanka 7 xaraf baa lagu soo dejiyay oo kulluhaa shaafin kaafin mid kasta uu caafimaadinayo kuna filan yahay jahli iyo xugun iyo wax kasta ka caafimaad lama qaama haddii kale qofkaas waa istaagaya markaasay faqaamu xataa lam yuxsaw ayagii dhammaa waa ilaa la koobi waaye tirada dadka istaagay ilaa ciddii maqashay buu yidhi ha istaag فشهدوا وحي كوضا مرقاتك عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فقال عثمان وحيري وأنا أشهد مع أن مرقاتبا كالأحيبي سواء مذ أو هرت ويصغر تقص لبا حديث وكلام موتنا يقاف أي أرنتها سقود عبي هي أرنتا بيسيني أحيب مرحل جدا برحيب بخاري مسلم وحي صحيح وذكوريا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان ربا بخاري مسلم وحي وريين وبخاري لفظ ليه عمر بن الخطاب وحي سمعت هشام بن حكيم من كاسان مقلوب وحي يقرأ سورة الفرقان أخرنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فاستمعت لقراءته بان استمعت لقراءتي بمركة دقيستي فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة أوجه بدن بوكد الأخرين هياي ولم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النبي أنك فكيت وحان باكو سكتي بأساوره في صلاة دحيدة إن أنكو أتاقها يكسو بوده فانتظرت وان دوري حتى سلم إلى أكسلام ثم لببته بردائه قوي سيمان دونت أقبتي بكليتي وحر أو بردائه من قوي فقلت وها إربي من أقرأك هذه الصورة إن كان كليتي وكلي يا سورة دنكو أخري قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي أخري وها إربي كذبت بين باشرت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه الصورة التي سمعتك تقرأها سورة دان على أخرني النبي يعني أي أخري سانو أخرني فانطلقت وأن تجيب أقود حالا هجامين إلى رسول الله بأن لا صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان هذا إيه أخري إن كان قابك له أخري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري فرت أرسله يا عمر فرت بلنك سيدا بي اقرأ يا هشام وأخري فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها قرأي عن مغلي أسوأ آخرنا يا أبو بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاسي وحير هكذا أنزلت تبقى آخرنا يا سورة الوسود ثم قال رسول الله وحير صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف بالبسيط فقرأوا ما تيسر منه وحيني فضلك آخر صلى الله عليه وسلم مسلم باورينيا عن أبي بن كعب صحابي يسكف أبي وحير كنت في المسجد مع كسونا فدخل رجل باسوق يصلي سويت كني فقرأ قراءة أنكرتها عليه قراءة كد صري قرواي وأخير وسورة وحي أهد بالي سورة النحل ثم دخل آخر مثل لا سوق فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه سورة دي بأخرين كي قرأي سميت غير كي دون أخرين لبض بطيري أحين
فلما قضينا الصلاة مركان صلاة تام يلان دخلنا جميعا على رسول الله كرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه كانوا قراءة لا يابو أخي ودخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه مثل المسك الأخي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وأمر فقرأ وأخي فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أرنتو دي ونقبو نسبة مثل سواق من تريد هذا فسقط بي وسواس بأمرك إقلي فسقط وحا كل في قلبي كده من التكذيب واحد بينين كمد أها كل عين أو إري بحانم سيحا كنا قن كلام اسخلاف سن ولا إذ كنت في الجاهلية إنتان إسلام ككهر أنك أهانا وحاسو إما صامرين بقلبي كده يعني وسواس بني آدم الشيطان با وسواسنا إنه واحد بيني ما فلما رأى مركو أقادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني وحا إضبا ولا يقول حبسدي وحي مركي إلهي كوغيسيه بو ضرب وحو النبي قراعي في صدري حبطك يقول كلفتي بدربحي ففضت أني لما وان بتاعويش عرقا لقد بان بلا شمي وكأني واحد موداب كأنما أنظر إلى الله إلهي إن أنفيرنا ياد مودابي فرقا عبسي درتيب أنا كده هيبت بايقول فقال لي مركو وسواسك الشيطان كقبت وحو النبي ويري يا أبي أرسل إلي إلهي وحو يقول صدر جبريل أن أقرأ القرآن على حرف هل جهينا كو أخذ فرددت إليه إلهي حقي سان جبريل عليو محان ويديسي أن هون على أمتي إله أمتي أفروض فرد إلي الثانية أقرأه على حرفين مرلبات لبا حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة هذه صدحات أقرأه على 7 أحرف تضبح أمامك أخر ولك بكل ردة ردتها مسألة تسألنيها مركز تو سو بريداي oo soo ceysay jibriilna su'aal baad leedahay ilaahay kuugu ballan qaaday adii weydiisanayso hore aan kaaga ajiibay nabigu markii sameeyay فقلت اللهم اغفر لأمتي وامد اللهم اغفر لأمتي لبو ساسن وآخرت ثالثة مدي صدحانا وان رب لكتيبي ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم ما لنا خلقي قدن أنا يسوى قصد هيان تاسو marka waa adilada tusinayso xaqiijinayso yani qaabkaas inay todobada xaraf marka way suuq laafeen tan marka uu sheekhu sheegana way gudbinaa todobada xaraf maxaa laga wadaa ra'yi baa sheekhu sheegay yiri waxa ugu sawaabsan todobada qira ra'yigaasuna waa daciif waliba daciif dhaaf weeyaan uu sheekhu asagu jismiyo saxiix daciif ra'yigaas ma socon karo sababtu qiraa'ooyinkan mutawaatirka ah todobadan kaliya maaha qiraa'ooyinka 10ka ah waa wada mutawaatir in la yiraahdo mutawaatirku waa qiraa'ooyinka todobada ah kaliya wixii ka dambeeyana waa shaadna waa qowl aad u daciif ah وكي إمام مستقي تاجدين سبك لها والقول بأن الشاذ ما وراء 7 إن لا يراد الشاذ كوا واحد الضبط قرا كقضى عليها شاذ في غاية السقوط ليدنان كما ضمبين بو قول كاسكتشوك مركوات الضبطان قرو رأيك هو كو وها مركا لغا ودا قولك ugu saxiixsan sheekha la yiraahdo Abi Ja'far Ar-Razi qowlkiisa weeyaan Abu Bakr Ar-Razi man ka wada sheekha qowlkiisa oo wuxuu leeyahay sheekhaas waa sheekha la yiraahdo al-Imam Abu al-Fadl baan ka wada Abu al-Fadl Ar-Razi sheekha la yiraahdo wuxuu yiri horta ahrufta waxa laga wadaa waa awjuh waana awjuhdaas todobay ku koobnaanaysa waana todobada laga helayo qirooyinka dhan markii la sugeeyo laga helayo mid waxa weeyaan bi ikhtilaaf al-asmaa asmaadi in iskhilaafto ifraad iyo tathniyo iyo jama' iyo tadkiir in isku khilaafto weeyaan bi mid in inta isku khilaafto ifraad yani asmaadi iskhilaafka asmaada kalimaadkii baa laga wadaa ana isku khilaafto ifraad iyo تصنيع iyo noocyaalkaas oo kale ta isku khilaafto sidii walladina hum li amanatihim wa ahdi muraa'una ila li amanatihim amanatihim mufrad ya amanatihim oo jamaa baa la akhriyo mid labaaduna waxa weeyaan
اسخلاف كبو يري تصريف الأفعال ماضي مضارع سو خلافان سيدي ربنا باعد يا ربنا بعد لا بد ولا باعدنا وأمر بعدنا ومضارع وحن كوضا أيوة ماضي مدة صدحنا waxa weeyaan باختلاف وجوه الإعراب إعراب كجدنين كردي ساس أو كليتو لا يسكو خلافه ومدة لقول مثالين كرا ولا يضار كاتب يا ولا يضار رأد من لقودا كرد معانكو شغني ووجوه الإعراب مدك يعني أفرادنا أو إسخلاف كالنوعيال كيسا كمدك هنا اسخلاف النوعيال كيسا كمدك هو وحويان الاختلاف بالنقص والزيادة زيادة يا نقص إن اسكو خلاف حباب للزيادة سيدي ملكي يا مالكي أوكي وما خلق الذكر والأنثى أوكي باقروين كقاركود وحا لا أخريه والذكر والأنثى أو ماذا أي كنسقان سنتحي مدك سناد وحويان الاختلاف بالتقديم والتأخير فرمارين يدمرين إن اسكو خلاف وحا أمي سأله بوير قولك إله وير وجاء سكرة الموت بالحق با وحا لا أخري وجاءت سكرة الحق بالموت بالحق الموت باقر ومتك لحاد يعني متك شناط كو متك لحادنا وحا ويان الاختلاف بالإبدال بدليت حرف كلا لقو بدلو لسو خلاف سيدي وانظر إلى العظام كيف ننشرها إيوه ننشزها إيوه وضلع منضود يضلح لأخيه فاسعوا إلى ذكر الله يفمضوا أخلته حرفها متك تضبادنا وحويان اختلاف اللهجات لهجوين كاختلاف كودا oo يعني نبراتك أصواتك حقيقة لسخلاف قل اللهجة ديدو هل أتاك موسى دي إمالنيسا قلنا ما إمالنيسا إمالة هي نوع رأيك ساسا ورتانا فائدة بو يري marka halka aswar باعتبار الناسخ والمنسوخ suurooyinka markii loo eego waxa nasakhay iyo waxa la nasakhay waa arbacatu aqsam waa afar qaybood qism laysa fihi mansukh wala nasikh qayb aysan ku jirin wax la nasakhayna kuma jiraan wax nasakhayna kuma jiraan وهو 43 وأفرطن يصدح الفاتحة ويوسف وياسين والحجرات لا تقدم والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة والنوح والجن والمرسلات والنبأ والنازعات والانفطار والمضففين والانشقاق والبروج والفجر والبلد والشمس والليل والضحى وألم نشرح والقلم والقدر والقيامة والزلزلة إذا زلزل والعاديات والقارعة والتكاثر والهمزة والفيل وقريش وأرأيت والكوثر والنصر إذا جاء نصر الله وطبت والإخلاص والفلق والنصر هذا القرآن صدح أوضا بيس وقسم قي فيه منسوخ باكتر من النسخي والناسخ مدوح نسخين وكتر وهو 25 وعشان يلا باطن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة وإبراهيم ومريم والأنبياء والحج والنور والفرقان والشعراء والأحزاب والصبا والمؤمن والشورى والذاريات والطور والمجادلة والواقع والمزمل والمدثر والتكوير إذا الشمس كورت إيوه والعصر وقسم فيه منسوخ فقط وحلا نسخي كليها كجره وهو 40 وأفرطن الأنعام والأعراف ويونس وهود والرعد والحجر والنحل والإسراء والكهف وطه والمؤمنون والنمل والقصص والعنكبوت والروم واللقمان وألف لاميم السجدة وفاطر والصافات والصاد والزمر وحاميم السجدة والزخرف والدخان والجاثية والعقاف ومحمد وقاف والنجم والقمر والامتحان سورة داس والمعارج سأل السائل والقيامة والإنسان وعبس والطارق والغاشية والتين والكافرون وقسم فيه ناسخ فقد وحنا سخي كريها كجره وحلقه لا آيات وحنا سخي لكن ناسخ وهو 6 الفتح والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلام هل كأقول عن نظم سيبي كلا أنت قرآن كسوى أرورتي أرنتاسنا سورة مريم بانكو شيء ونقنطه النبي فائدة في تفصيل حروف القرآن قرآن كحرفيه ستفصيل لتفصيليه وذكرها الإمام النسفي باشاقي في كتابه مجموع العلوم ومطلع النجوم كتاب ألفت قرآن كتداوى 48,000
أفرتن يسديد كن إيا وسط 740 إيا 740 ألف بعد قرآن كتدانا وأحد عشر ألفا كو إيا 10 كن إيا 420 أفر بقول لباتن تاضنا وحويان 1404 كن أفر بقول أفر تاضوا 10,000 طبعا كن إيا 480 أفر بقول سديتن ديمتوا 3,000 وصدح كن إيا 300 صدح بقول إيا 22 لبيا لباتن حادوا 4,000 أفر كن إيا 138 بقول صدن سديت خاضوا لبكن 2,503 إيا شن بقول إيا صدح ذلك هو 5,000 شنكن إيا 998 سقال بقول إيا سقاشن سديت ذلك هو 4,000 أفر كن إيا 900 سقال بقول إيا 34 صدن إيا أفر خاضوا 2,000 لبكن إيا 206 لوا بقول إيا لح زادوا 1,000 كن إيا 600 لح بقول إيا 80 سديتا سينتوا 5,000 شن كن إيا 799 سقال تضوا بقول سقاشن إيا سقال شينكوا 2,000 لبكن إيا 115 بقول شن إيا طبعا صادكوا 2,000 لبكن إيا 700 تضوا بقول إيا 80 سديتا ضادكنا هو 1,000 كن إيا 800 سديد بقول إيا 82 سديتا إيا لبو ضادوا 1,000 كن إيا 204 لبا بقول إيا أفر ضادوا 800 سديد بقول إيا 42 أفرتن إيا لبو عينكوا 9,000 سقال كن إيا 74 إيا تضبات أفر بقول إيا تضباتا غينكوا كن 1,229 إيا لبا بقول إيا لباتن إيا سقال فادوا 9,000 سقال كن إيا 800 سديد بقول إيا 13 صدح إيا طبعا قافكوا 8,000 سديد كن إيا 99 سقاشن إيا سقال كافكن 8,000 سديد كن إيا 22 لبيا لباتن مid كان ليرادو لامكنا waxa weeyaan buu yiri 3 soo laamka ma waxaan maraya 33,000 صدن iyo 3 kun و900 سقال بقول iyo 28 لباتن iyo labo miimku waa 28,000 لباتن iyo 8 kun iyo 900 سقال بقول iyo 28 لباتن iyo labo nuunku waa 17,000 kun هذا هو 26,000 لباتن iyo 6 kun iyo 900 سقال بقول iyo 25 شن iyo لباتن وودنا و 25,000 لباتن شن iyo لباتن kun iyo 500 شن بقول iyo 6 لام ألف كنا و 14,000 أفر iyo 10 kun laadu iyo 700 تضابق iyo 7 تضابق يادنا و 25,000 لبا شن iyo لباتن kun iyo 700 تضابق iyo 17 iyo 7 وأما جملة حروفه قرآن كحرفه جملته مركي لسكو وضدره فهي 1,000 وهل مليون iyo 7 تضابق iyo 20,000 iyo 20 kun بإدخال حروف الآيات آياته المنسوخة للنسخي حرفه إذا قلينت لقلينا حاله كده مركي حرفها للنسخي أو يعني قرآن هان لو أقرنها ونصفه الأول قرآن كالبركي سهرنا باعتبارها مركي حرفها لو إيغو ينتهي وحو كل مانيا بالنون بو كل مانيا من قوله نون تحالك أهات إلهي قول كيس في سورة الكهف وكيري ولقد جئت شيئا نكرا نون كاسا حرفه مركي لو إيغو قيبتو دي هركو اكتا كالبركة والكافنا وأول النصف الثاني بركة لبعض حرفها باللوجي سوي كافتنا وعدد درجات الجنة جنة الدرجوين كذا انت طبق اي كوبان تهي بعدد حروف القرآن قرآن كحرفه ستردو دويو هل كمليون ايو لباتن ايو تضبط كن وبين كل درجتين لبد طبق وكسو جنة وحا أدحي قدر ما بين السماء والأرض انت دولك ايو عركة أدحي سوكالي وأما جملة عدد آياته قرآن كآياته ستردو دي ميا مركي لأيغو فهي 6,000 و6 إيو 500 يشنبقل نصفها الأول كالبرك يظهر آياته ينتهي وحو كرمانيا بقوله في سورة الشعراء إلهي أكير فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكم وعدد جلالات القرآن كإنت الله إذا كتدانه و1,000 لبكن إيو 600 لحبقل إيو و64 لحدا إيو أفر ومصنف هل كان مركب وحن كجلينا علماء كتابهنا ألفت التاريخ ومصنف هذه تكملها
تكملة شيخ ألفي وهو الإمام العلامة حافظ العصر ومجتهده سيدنا ومولانا جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي فصح الله في قبر الله واسعي ونفعنا والمسلمين أنجي مسلمين تنا إلهي ببركتها كأنفعوا بمحمد الله نقول أنفع النبي وآله سيوطنا بضم السين ويقال سيوطنا والدها ومدينة بالسعيد مكة مصر وكذا سعيد كمدينة كتاب كان مكة سيدان أركينه وعككوا بينها تفسير كاهو شيخاس مفسر كاه هي متك حاشية تفسير كان مكة سيدان كوبا أركي دونه مردو wuxuu isaga tagtay inta matniga ah oo aayadaha fasilkooda ah koobaad ah labadan sheekh mid waa Suyuudi wuxuu leeyahay suuratul baqara laga bilaabo ilaa suuratul israa ay dhamaato subhanalladhi asra bi'abdi ulay asab inta kale suuratul kahfi laga bilaabo ilaa faatixada iyo dhamaadkaasna waxa leh waa jalaaluddin al-mahalli baalih labadooda taariikhdoodana meel uu ka taabanayo baan ugu tageynaa marka wax yar baan wadinaa kitaabkan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi ilaahi buu ammaano u sugnaaday xamdan ammaana la ammaanaa ilaahay u sugnaaday ammaantaasoo muwaafiyan qaabilahaya linicamihi ilaahay nicmooyinkiisa qaabilaya muqaabilan lahaa nicmooyinka ilaahay buu qaabilayaa heer falaa taqacu nicmatun ilaa muqaabalatan bihada alxamdi nicmo kastoo ilaahay kuu galaa heer ammaanu qaabilsan tahay heerkaas ku wata xamdigaasoo mukaafi'an haddana la sinaanahayo u beegtoomaya limasiidihi ilaahay ziyaadadiisa wixii ilaahay soo ziyaadiya hadda kadib oo nicmo ahna xamdi qaabilhaya wasalaatu iyo wasalaamu naxariisiyo nabadgelyana calaa muxamedin calaa sayidina muxamedin baa nuskha ahayd waa ka hoos ka dhahaya iyo waaalihi ehelkiisa ha ahaadeen wasaxbihi iyo asxaabtiisa ha ahaadeen naxariistay nabadgelyada korkooda wa junuudihi iyo nebiga suuban ciidamadiisa ha ahaadeen korkooda walmuraadu bijunuudihi buu ciidamada nebiga waxaa laga wadaa sala allahu calayhi wasalam kullu man yuciinu cid kastoo cala diini diinka ka kaalmaysa kaalmo ka geysata wa calaa idhaarihi iyo diinka la muujintiisa la muujiyo ka kaalmaysa kaalmo ka geysata bilqitaali bay ku kaalmaysay dagaalan fii sabiilillaah jihaad ilaahay ee ku dagaalanto aw bitaqriiri alcilmi ama cilmigii la sharaxitaankiisa dadkii la fahansiy aw bitaaliifihi ama alifitaankiisa wax laga qoro wa dabdihi iyo la aruuriyo aw bitacmiiri almasaajidi ama masaajida in la camiro buu diinka ku muujinayaayu camiro aw bigayri dalika ama waxaan intaas bahayn waxay rabaan ha noqdo junuuda taasaa laga wada min casrihi laga bilaabo nebiga suuban xilligiisa sala allahu calayhi wasalam bay saas ciddii yeesha ilaa aakhiri zamaan ilaa zamanka aakhirkiisa laga gaaro haadaa buu yidhi marka imaamu suyuudi midkaanu alfaadan adugu sharaxaanu iyo macaanidan qalbiga ku xaadirka ahu maa shay weeyaan ishtadad ay darnaatay ilayhi xaggiisa ay u adkaatay xaajatu raaqibiina dadkii rabay baahidoodaa shaygan ku daran oo aad ugu bahan fii takmilati tafsiiri alqur'aani alkariim qur-aankii wanaagsanaayo sharafka lahaa fasiridda la fasiro kaamil yeelitaanka la dhammaystirana u baahnaayeen raaqibiintii ku xiran alladii tafsiirkaasoo allafahu uu alifay oo isu keenay alimaamu hogaankii islaamka shiikhii ahaa alcalaamatu cilmiga badan lahaa almuxaqiqu cilmiga xaqiijiyey jalaaluddiini ahaa waa laqabkiisa ammaan tusinay mujilludiin diinka midkii weyneynayo ixtiraamay ah muxamedu ahaa ibnu axmeda ina axmed ahaa almaxalliyu meeshaas maxallah la yidhaahdana loo nisbeeyey oo bifatxilxaayi hoos waaka ku yidhi nisbatun lilmaxallati alkubraa baa loo nisbeeyaa almaxallatu alkubraa waana madiinatun madiino magaalo oo min muduni misra misr magaalooyinkeeda ka mid ah iyo wa tatmiimu maa shaygii la dhammaystirkiisana weeyaan midkaanu faatahu dhaafay shiikaas intii dhaaftay wa huwa asaguna midka dhaafay min awali suurati albaqarati laga bilaabo weeyaan ilaa aakhiri alisraa'i ilaa laga gaaro suurata waa dhaaftay wuxuu ka wadaa wixii uu la yimid bay u taam yeelaysaa wixii dhaafay waaba kan wixii asaga dhaafay waaba midkaan lala yimidba
wixii dhaafay kanu dhammaystiru ma ahan wixii dhaafay laftooda waaba kanba waaba midkan hadda aan kor taaganahay marka midkaanu sharaxaygu wixii asaga dhaafay oo sharaxaygii ah ilaa intaas lamuusan imaane buu sii taam yeelayaa ma ahan waxay ka dhiganta isagoo yiri maa ataa bihi wixii uu la yimid dhammaystirkeedii kan marka hadalkaa tasamux baa ku jira waa ka dhahaya marka wuxuu yidhi wasayaatii meeshaas wuxuu yidhi fii aakhiri lisraa'i waxaa ku imaan doona waxa mucjizadaa suyuudi saasuu ahaaye annahu fasara haada nisfa inuu niskan fasiray qur-aanka suyuudi fii miqdaari miicaadi ilkaliim nebi muuse ballankii loo qabtay intuu uu la ekaa oo maxay ahayd ay fii 40 yowma wacadnaa muusa 40 leylatan 40 habeen buu ku dhammaystira bal fii aqala minhaa wax ka yar وكان عمره إذا كما كان انتجر سيوطي 22 سنة 22 جير أو أقل منها بشهور أما بلوك يرابي مركز تكملة عنه تفاسير تيسي الرئيسي بي أهريسي وهي تفسيره ألفي وحونا تفسير كان ألفي بي بعد وفاة المحلي مركو انتي كدب شيء خاص انت كرلها ب6 سنين اللي بلوت قدم بيسي سيوطي وحو كل شيء بيري بعد المغرب ليلة الأحد بودش مغرب كدب هبين أحد مستهل الرجب بلوغيس سنة 90 تاد الهرمري الفوقية 49 و800 مركي يجرم اللحب سداد بقول أفرتن إيوه سقال وكانت وفاته 13 صدحية طبعا إيوه 900 بي هايد بويري سقال بقول مركي يجرد مريسي أرنتاس مركي والغير رجحين هاي وكوية طبعا ماشا تاج هيدو تاجيغان واجرة لكن تاج وصاص وكوية طبعا سقال بقول إيه كوية طبعا فجملة عمره مركا وحويان 64 سنة لحدا إيا 4 سنة لواد كجريسا لحدا إيا 2 سنة قونا يدو راجع محل باكوسو هري رضي الله تعالى عنه فكان مولده وحوها سنة 91 و700 تضوبق السقاشن إيا كو بولش ومات وحود انتي من أول يوم سنة 64 و800 سيديد بقول لحدا إيا 4 مركي هجرد مريسي سنة كمالي محوها يهريو للطيب مركا عمري صبوحها نحو 74 سنة تضباطا يا 4 سنة جرمي الحسبها تاريخ ذو قابا سيودي مركا كتابه ألفي علماء قار waxay ku sheegeen 6 boqol kuwana 5 boqol ee zaid ku sheegeen aduu kuwa madbuuca iyo kuwan madbuuc ahaynba inta haatan dhaxal ahaan la hayaa kitaabihiisa dhan waa la wada hayaani ilaahay qabuul siiyay buu ahaa 4 boqol waa ka badan fanni kasto ku alifay waxaana asoo kuba filanba inuu ahaa baa la yiri mujtahid mutlaqa sida imaam shaafici xilligiisa sheekhan maxalliga la yiraahdo xufaada axaadiistana ka mid buu ahaa xaafid weyn buu ahaa waxa ay ugu adkayd bi laba cilmi mid mantiq u ahaa midna xisaabta tahay xisaabta wuxuu yiri markaan ku mashquulayo waxaad moodaabiyaa wax xisaaba wajahaba hal oo kale tay xisaab wax ku saabsan inaan buur qaadayo moodi jidid كو مركي شيخان ليرادو محليغانا oo xilliga asna dhintay 864 asna wuxuu dhaxal badan buu ka tagay oo kitaabkan uu kamid yahay kitaabkan minhaajka sharxahayo kanzur raaqibin leeyraahdo uu kamid yahay oo qalyubiga ay xaashiyinayaan xaashiyada uu kamid yahay jamcul jawaamic sharxiisa uu kamid yahay culum badan buu wax ku alif nooc kasta leh bayna xawataay haday fiqh tahay haday usul fiqh tahay nooc kasta tahay waxa hadaladiisa kamid ahaa baa leeyiri inuu yiri in dhihni la yaqbalu al-khata aniga wuxuu yiri aqligaygu iyo maskaxdaydu qalad ma aqbali karo waxa qalad ah inay aqbasho kama suurto yarkaas uu gaaray xifdigana ma awoodin baa leeyahay sheekhaas inuu xifdiyo habayana maalin buu wuxuu xifdiyay karaasadu waxaan warqada buu xifdiyay markaas uu gubtay kulay isaga joog saasuu ahaa idaacada ilaahay ku abro شيخان waxaa soo haray marka xaashiyada leh jimilka asaguna wuxuu horta sheekhaas u geeriyooday kun waa ninka dambeeyay nimanka kun iyo 204 hijrada markay ahayd kun 204 markii hijrada maraysa baa sheekha geeriyooday wadna marka wuxuu yiri huwa min awali suurati al-baqarati ila aakhir al-israa bitatimmatin ma'a tatimmatin dhamaystir maceedana la taam yeelo wuxuu ku xiran yahay bitatmiimudi كانوا وحوي يبي لما يسترك شيء خاص وحي قافل لما يستر بتتمة مع تتمة لما يستر معيدنا
baana dhamaystirayaa wax kalena waan ku sii darayaa oo intii asaga dhaftay keliya aan ahayn. wuxuu ka wadaa buu yidhi waa Suyuudi tafsiirka uu la yimid markaas oo wuxuu bacda faraaqihi min suurati al-Israa markuu suuratu al-Israa bogay kadib waxa uu la yimid buu ka wadaa hada aakhiru ma kamaltu bihi tafsiir al-Qur'aan al-Kariim ila aakhirihi busharaxat maca tatimmatin calaa namadihi daasu tatmiimkii hore ka xaale wa tatmiimu maa faatahu wixii tegey la dhammaystirkiisa weeyaan. calaa namadihi tatmiimkaasu maxalliga dariiqiisii dariiqa korkiisana xaalu ahaaday. maxalliga tafsiirkiisa tafsiirka dariiqiisii korkiisa xaalu ahaaday. sida asagu uu wax ku waday baana ku wadayaa. kan waa tatmiimu maa faatahu wixii dhaafay dhammaystirkiisa. calaa namadihi tatmiimkaasuna xaalu ahaaday tafsiirkii imaamkaas maxalliga dariiqiisa dariiqa korkiisa xaalu ahaaday. oo dariiqiisu muxuu yahay isagaa kuu sheegay dhowr arrimood buu kuugu caddeeyey. oo min dikri maa shay la sheegitaankiisii a dariiqiisu yufhamu bihi shaygaa lagu fahmahayo kalaamullaahi tacaala ilaahay kalaamkiisa lagu fahmahayo. cibaarooyin baan cabirayaa kalaamka ilahay lagu fahmayo. walictimaadi iyo cuskasho ah waxaa dariiqiisa ahu calaa arjaxi alaqwaali qowlyaalka midka ugu rajaxan la cuskado. iyo wa icraabi maa iyo shaygii la icraabitaankiisii a yuxtaaju ilayhi loo baahan yahay. iyo wa tanbiihin baraarujin ah dariiqiisii buu tilmaamayaa asna uu ku socdo cala alqiraa'aati laysku baraarujinayo qiraa'ooyinkii almukhtalifati iskhilaafsanayd oo almashhuurati caanka ahayd. calaa wajhin baana weliba aan ku sheegayaa intii oo dhan baad ku xidhaysaa. waxaan sheegayaa wax kalaamka ilaahay lagu fahmo. aqwaasha inteeda raajaxa la cuskado. la icraabo wixii loo baahan yahay. qirooyinkiina lagu baraarujiyo kuwa mashhuurka. calaa wajhin baana lagu sheegayaayo lagula baraarujinaya qaab wejkaasoo latiifin gaaban oo yar. wa tacbiirin iyo cabiritaan korkeedaana lagula baraarujinayaa tacbiirkaasoo wajiizin la gaabiyey asagana oo mid aan dheerayn ah. wa tarki aqwaalin wa calaa tarki aqwaalin calaa wajhin baa intaa lagu sheegayaa. wa calaa tarki aqwaalin iyo qowliyaalo laga tegitaankooda korkooda lagu sheegaya. qowliyaalkaasoo bidikri wa tarki tadwiil wa tarki tadwiil iyo dheerayntii laga tegitaan laga tago korkeedana intaas aan soo sheegay kula baraarujinaya kula sheegaya. bidikri aqwaalin qowliyaalo la sheegitaankooda lagu dheereeyo baan ka tegayaa. aqwaashaasoo kayri mardiyatin mid laga raadi yahay aan ahayn oo aan daciif ah. waa cariiba iyo icraabyaal laga tegita in lagu dheereeyana baan ka tegayaa. icraabyaalkaasoo maxaluhaa ayada maxalkeedu iyo booskeedu kutubul carabiyati ay tahay carabiyada kutaabaheeda. wallaaha ilaahay uun keliya baana as'alu weydiisanayaa an nafca baan ilaahay weydiisanayaa bitatmiim bihi tatmiimkan ilaahay uu ku anfaco. fi dunyaa adduunyada fiigeedana ilaahay aniga iyo cid kaleba igula anfaco. wa axsana aljazaa'i abaalmarin kan ugu wanaagsanna ilaahay baan weydiisanayaa calayhi tatmiimkan uu igu abaalmariyo aniga kayrkiiba fi lcuqbaa aakhira fiigeeda igula abaalmariyo. bimanihi ilaahay nicmadiisaan ku weydiisanayaa wa karamihi iyo ilaahay deeqdiisa iyo nicmadiisa iyo galladiisa iyo amaal sheegadkiisa iyo nicmayntiisa. ka ugu dambeeyo oo gogashii aan wadnay ugu dambeysa waxaan kusoo khatimahayaa kitaabkan tafsiirka ahu jalaaleynka iyo xaashiyadan maxalliga iyo labadan tafsiir qaabkay aniga igu soo gaareen. mashaayikh oo 5 ah baa anugu kitaabkan ka soo qaatay. waxaa la yidhi alcilmu waxaa hadalkaa loo nisbeeyaa wakiic ibnu ljaraax sheekha la yidhaahdo. wuxuu yidhi alcilmu raximun bayna ahlihi. cilmigu waa qaraabo ka dhexaysa dadka ahlu cilmiga ah. sida aabbaha aada ugu abtirsanaysid oo qaraabo kaala dhexayso oo uu waalidkuugu yahay. awowo kii kaleeto kiisii dhalay uu yahay. aabbuhu midkuu dhalayna uu walaal u yahay buu qofkaa cilmiga ka qaadatay buu raximkaasoo kale u shabaha. kii aad wada qaadateenoo akhdiga aad wada samayseen isku dabaqada tihiinna walaalkii buu shabaha. kii kalena waa saas qaal alcilmu raximun bayna ahlihi. mashaa'ikhdaas marka 5taa waxay u qaybsamayeen qolo aan ijaaza uga qaatay sanad ahaan iyo qolo aan samaac iyo maqal uga qaatay. kuwa aan maqalka uga qaatay waxa weeyaan sheekh maxamuud cali wacis raxmatullaahi tacaala calayhi wa ridwaanahu
iyo sanadka kitaabka uu kusoo gaaray isaga samaaca baan uga dhageystay sheekha labaadna wuxuu aan samaaca uga qaatay sheekha la yiraahdo sheekh maxamuud xereed dadkan u yaqaanino sheekh caana dadkan u yaqaanino sheekh maxamuud cabdiraxmaan sheekh la dhigi jiray asna samaac baan uga dhageystay weliba sanadkiisu asagoo ku warin jiray galab kasta markuu casharka akhrinayo wabisanadi almutasili ila alimaami almufassiri buu ka bilaabay hadalka sanadka uu ku gariyay sheekha saddexaad waxaan ma garanayo magaciisii baan ahayn laakiin waxaan galiyoo garanaya lacalla intuu warkaygu qof gaaro inaan helaa dhici karta masaajid buu wuxuu ku akrin jiray tafsiirka la dhigi jiray dabakaaya madow agteeda ahaa madiino xaafadeed weliba masaajidkaas laamigu saarnaa dhinaca bari buuna ka ahaa inuu sheekhaas qabiilkiisu mursado ahaana baan filayaa asna waan ka dhageystay laakiin sheekhi maayo laba sheekhna waxaan uga soo qaatay kitaabka samaac iyo sanadkoodii weliba sanadkooda ayaga waan hay mid waxa weeye waa sheekhayga sheekh cabdisaaq xafidahu llahu tacaala wacaafah wa ataala cumrah maca alcaafiya sanad baan sheekha uga soo qaatay ay noo dhaxayso asaaniid badan buu sheekhu ku hayaa kitaabkan tafsiirka ah aan filahayo waan hayaa sanadkii isagoo qorani inay noo dhaxayso jalaaleynkan labadoodan isku sheekh baa ka soo qaaday sanadka labadooda iyo aniga markii dariiqa sheekha la maro sheekh cabdisaaq inay noo dhaxayso 14 ama 15 baa noo dhex maraysa sheekha labaadna wuxuu ahaa markii loo fiiriyo waxa weeyaan xaashiyada marka loo eegana markii loo eegana adigu waxa midaan jamalka adigu ilaa 6 meelahaas aan oo dhaxaynaysa saawigana 5 meelahaas way ka dambeeyeen saawiguna jamalka uu ka sii dambeeyay asagaaba ka soo qaada tafsiirka maxalliga ka wariya sheekha kale tan wuxuu ahaa sheekha aad taqaaneen oo Etoobiyaanka ayaan dhaxaan janaasa ku tukanin sheekh maxamed oo xaramka asna aan sanad ijaasada uga qaatay isaga markii sanadkiisa xoogaa uu ka koreeyaa sanadkan kale oo waxa u dhaxaynaysa markii sanadkiisa la maro qoladan matniga leh iyo marka aniga waxa noo dhaxaynaysa markii sheekha lagu daro waxa noo dhex maraysa waa 13 soo gaabanay qoladan kale markii loo fiiriyana 5 bay markaas noqonaysa saawigu ka kale 6 buu noqonayaa بس أنا أذكر أن روينا تفسير في آخر سورة البقرة سبحان الله ربنا